الحمد لله رب العالمين. ثم waxaan aad ugu mahadcelinayaa munaasabadka kala duwan ee galabta halkan ku sugan ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada ee degmada Afgoye oo aan shaqaynayay aniga markii labaad halkaan imaanayo sanadkii labaad hore ayaan bishii June mise July garanaya halkaan jaamacadda maalin ay yeerto halkaan aan tababar markaan ma cusbin استاذ يعني كان صاحبكي او سجلت الكيسو قروا بس صفرينه أبوي ماذا قرصوا مكان سبب انت أكيد كل بوك يوها بوران يهاوي إنسان استاذ كان هو شهيد وانا الله هذا أنا أقول كل يوم هذه واجبات كان هنا كسر بحنا كل بوك اللي كان هنا قاعد وطان سيد نفتي مثلا ما أقول فعلا موضوع الانتاس ما هو رجينا أنت كذب واحد ربعه صاحب ديال وحيد أول أنا وقتي كفاية سنايا أنا إذا لو ده وأنا تفضلت اليوم لو ده معلومات يحقق عن سلية هاي مستقبل وده تميز عيل وده تبع عيل فعايا سكوان waxay ka shaqeeyaan barnaamijyada tababarada iyo waxyaabaha saxsan salaamta meesha ka shaqeynayeen horta mid koowaad gabadh ma ama wiil noqo meesha tiri joog waxa ugu muhiimsan ee ku caawin karaayo waa inaad nolosha aragtida ka leedahay that's number one haddana nolosha marka aragtida ka leedahay maxaa dhacaya waxa laga yaabaa wacyiga dunida soo socda inaad warkahay yes maalmuhu waa isu kaa bedelayaan caadiyan sanadyada laftooda waa isu kaa bedelayaan toddobaadyadu waa isu kaa bedelayaan biluhuna waa isu kaa bedelayaan laakiin sanad isbedelay micnihii maaha noloshaada inay isbedeshay maaha bil cusub inay ku dhalatana maaha noloshaada inay baalka cusub in ugu furmay maaha warintaa may fahmaysaa aasaaska noloshu waxa waaye si kastoo duruufo iyo culaysyo iyo caqabado waaweyn ay ku haysaan waa in rajo horta ay ugu muuqataa that's number one wax subax markaa soo kaco aan kusoo tooso waxba ay jiraan laazim annaga subax waa soo toosnaa laakiin waxaa kala duwan waxaan kusoo toosnay intay la eg yihiin iyo sidaas ugu dagaalanaa kala duwan soo saas maa midoogaad waa ogahay laazim qof kastoo hadda dhalinyarada hami waa ku jiraa habal la kala weynaado habal la kala maray laakiin qasab qof kastoo naf ku jirta hami waa ku jira hanuunkeeda waa loo kala weynaado eeg dadka qaarkood eeg ma maqli jirteen hebel waxaasoo xabsi ku jira waxaasoo xabsi ku jira ma kala jirteen waxyaabaha ugu waaweyn ee qofka dhalinyarada uu xabsi u geli karo aragtidiisa sidee waxa laga yaabaa qofku inuu leeyahay inta halkaan aan ku noolahay waxba ma noqon karo waxba ma qaban karayo mana soo bixi karo mana soo noqon karo inuu qofku leeyahay baa laga yaabaa sidaas ay tahay marka maxaa la yidhahdaa environment-ga aan ku nooshahay oo meesha ay joogto adduunyada meesha aad ka joogto in badan waxaa ka muhiimsan baa la yidhahdaa wax adiga kugu dhex nool waxaas marka adiga kugu dhex nool hadday dhintaan adduunyada meesha u qurxoon adiga ugeeya dhintaan waxaa laga yaabaa wax isbedela in adig helin baa laga yaabaa war may fahmaysaa halkaa marka qodobka kuwaad waxa waaye maxaa horta rajaa nolosha ka leh rajada hadday kaa dhunto si kastoo nolosha aad u qurux badan tahay si kastoo aad ugu soo jeedo famil kaliya si kastoo dadka ku dhalay ay yihiin dad wax bartay dhaqan badan nolosha inaysan kuu lahayn laakiin markay nolosha badan kuu leedahay waa goorma marka suuji markaad soo toosayso aad taqaanid sababta aad usoo toosayso laakiin sida dadka caadiga haddaad noqotid waa waxaa sheegay sanadku waa isu kaa bedelaya bilu waa isu kaa bedelaya another change with your life 5 sano 4 sano waxaa laga yaabaa noloshaada inay isku mid tahay kaa waa kada qodobka labaad waxaa la yidhahdaa qofka markii uu riyo nolosha ka leeyahay ama aragti markuu ka leeyahay
markaas waxaa la yidhahdaa caqabadaha nolosha markaas waa kaa baa la yidhahdaa qofku intuusan wax isku dayay oo gurigiisa iska joogo wax walba isku saarayeen adduunyadu inay culusahay inay fududahay marka ma haya laakiin markuu wax cusub tijaabiyo markuu dhaqaaqo markuu meelo kala tago xilligaasuu ogaan karaa xaal cusub waxaan ka rabaa naftiina marka waxaa laga rabaa inaad la challenge garaysaan maxaad kula challenge garaynaysaa qofka maanta aad tahay qof ka duwansaad ku noqon rumaysla fahmin halka yes waana idin sheegay xuduud hadday qofka celin karayso 80% waa maskaxda ama nafsaaniga 20% baa wixii waxyaabaha caadiga ah oo real challenges ka arkayna waa 20% 80% laakiin waa mentality maskaxda qofku siduu wax u arkayo siduu u fikirayo waxa uu ku fikirayo intii la egyahay waa taawo marka adigu hasdabri bes waritaan fahmaysa adigu hasdabri bes sheekaya waxay istixaamay waa iga raali noqonaysaa waxay sheekadaana idin sheegaya qodob kalena oo soo gabagabay sheekadan caam waaye laakiin waxaan rabaa waxaan sheegay inta u dambaysaa xiisa dadkeena u badan way yaqaanaan sheekada laakiin qaybta u dambaysaa xoogaa wax laga yaabo dadku inaysan inta badan ka warqabin waan idin dulmaraya sheekada qaybta walba ku siinayaa meesha dhamaan laakiin xoogaa isku taagaynaa beri baa waxaa la yidhi nin boqor ah oo sida madaxweynaha oo kale meel xukuma ayaa maalinka dambe waxaa la yidhi wuxuu go'aansaday bal inuu fiiriyo lacag dadkan uu xukuma hadday wax qabsadaan sidii isku furdaamin karaan oo ay wax u xallin karaan suuxii dambe soo baxay waddo weyn oo shaaric oo saas magaalada dhexmara ayuu wuxuu dhex dhigay dhagax weyn oo qofku inuu geeska marmaahan uusan dhaafin karin meel yar oo waddada agteeda geed ku yaala oo ku gambaday marka wuxuu dhaho qof kasta waddada soo maray inuu ogaaday raashinkiisu ogaayo dadkii marka waxay bilaabeen waddada caadiya marka horeba way mari jireen qof kasta markuu meesha soo maraba boqorkii waa canaantaayo wax ka sheegaayo waxaan boqor maaha dhagaxa naga qaado waddooyinka boqorkii waxaa kala dhegaysanay geesu ka wara qof walba geesu ka wara dadka si u socodin baa markii dambe waxaa ku soo aaday nin rarata oo agab wata dhagaxaan inuu iska wareejiye maahan si kale meesha mari karin ila dad kale geesahay ka mareen kii agabkiisiibuu meel dhigta wuxuu go'aansaday keligii dhagixii inuu wadadii ka qaado dhagixii dilay markuu geeska kala geeyey sheekada inta la yaqaana waa intaa boqorku marka wuxuu sameeyey dhagaxa hoostiisu wuxuu geliyey 2 shay oo ugu talagalay qofkii dhagaxaan dildileeya inuu abaalmarin u helo shayga koowaad warqad yar oo inta ku duuduubay dahab wuxuu u talagalay qofkii dhagaxa meesha qaadi oo qaato abaalmarin u helo iyo warqad yar oo ay ku qoran tahay 7 kelmadood oo Ingiriis ah ninkii markuu dhagaxii meesha geeyey warqad yar oo dahabkeedu arkay waa qaatay warqad kala meesha taal duuduuban laakiin waxaa ku qoran 7 kelmadood oo Ingiriis ah 7 kelmadood waxaa rabaa inay meesha蓝牙已连接。soo gabagabeynaya haye 7 kelmadood ee meesha ku qornaa baa marka waxaa rabaa hal mar baan oranayaa idinkuna waa iga oranaysaan are you ready wardiyaa ma tihiin yes warqadda yar marka waxaa ku qornaa intaana ku qornay waxaa ku qornaa what comes the way becomes the way ayaa mar iga dawlaa what comes the way becomes the way oo macnaheedu waxa uu yahay safarka nolosha intaad ku gudan jirto ood soconayso dariiqa aad ku safraysa wax kastoo kaa hor yimaada ama isbaara kuu dhigta waxa laftirkooda waxay kuu noqonaya dariiqa kuu noqonaya horta misla fahmayna that's the meaning of the story dadkuna inta badan way yaqaan fara badan baa ii taagan qodobka u dambeeya kusoo gabagabeynaa waxa waaye labadaa qodob ee horeen sheegay haddaadan kan ku kabin macno badan kuuna samaynaayo waa maxay waxa aad raadinaysa nolosha waxaa rabaa inaad ku fara adeegtaan tusaale haddaan sida ustaadka maanta aan martida u nahay inaad qoraan noqoto saas oo kale lagu casuumo lagu marti qaado meel kasta lagaa dalbado waqti bay u baahanta
نعم واحد ضرب شيء ضرب شيء كل معنا معنا دار تقف أقوليها نعوضت كيسو إشافات ويجعلي ندار تلا نقطة وقت بقى هذا ليس فكا واحد كسوي كذا هني إنها تكفر عليه أنا قلت لك أنا رئيسي هيسوي حكمه قف كسوي الربع السفر دين وحوار قف كسوي الربع أي السفر وحنا قدر حال لي لا واحد كسوي السفر ضد ومسوق السفر ضد على بيتها لكن وحسي هذا ومسوق السفر ضد على بيتها وماذا فهم سامك مهمة في دك إنها تقولي ستمهمة لكنها تقولي ستمهمة waxa raadinaysa inaad degdeg ku yeesho muhiima laakiin ay shay muhiim ah yurma waqtiga qaadanayso laakiin adigu maxay iska daba joog one day faraha ku dhigaysa war inta meel ma misaay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan kaga rajaynaa guulo badan iyo isbedel baa kaga rajaynaya laakiin dhalinyaro anu dadku way kala hadlaa dhalinyarada la hadlaaya waqtigeedii ku soo qaadateen hal gambay nolosha ka kartaa war bisla faamila halkan markasta ogaada meesha joogtaan ha isku qiimeynina waxa gudihiina ku jira inta bas isku qiimeeyaa keenaya thank you so much